Merhaba, adım Furkan Sefa Çamyar, Türkiye'liyim. magacaygu waa Furkaan waxaan u dhashay Turkiga waxaan ahay macallin luqadda Turkiga ka dhiga jaamacadda cilmiga caafimaadka isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista ee Soomaali Turkiga ee Muqdisho aabahay waa imaam u shaqeeya dowladda Turkiga gaar ahaan imaamyada 81 gobol ee Turkiga ayaa loo beddelaa waxaan ku dhashay miyiga gobolka Karabo aabahay meeshaas ayuu imaam ka ahaa miyigaas ayaan ku soo koray 9 sano anigoo jira ayaa aabahay loo beddelay gobol kale oo la yiraahdo Antalya dhallinyarnimadeedii dugsigayga dhexe sare xaggaas ayaan ku soo qaatay aniga ahaan isbeddelka shaqo ee aabahay tijaabo iyo farxad ayay ii ahayd kadib haddana aabahay gobol kale ayaa loo beddelay laakiin gobolkaas waa gobolkeennii oo ehelkeennii oo dhan ayaa joogay Urdu ayaa la dhahaa sanadkaygii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayaan ku qaatay kabacdi waxaan hal sano isku diyaariyay jaamacadda aan geli lahaa kadib waxaan jaamacadda Karis Kafkas ee Turkiga ka bartay afka iyo suugaanta markii aan dhameeyay maxaad qabanay inteed ka shaqaynay anoo isdhahaya ayaan Soomaaliya shaqo ka helay waxaa su'aal caadi iska ah markaad weynaato maxaad noqonaysaa inay ku dhahaan macallimiintaada iskuulka ama waalidiintaadu markii la yaryar yahayna ilmaha aabbahood ama macallimiintoodu waxay ka arkaan ayay noqonayaan ayaan ku fekerayay sidaas si lamid ah aniga waxaan dhihi jiray macallin ayaa noqonaya kamana aanan warqabin macallinimadu inay culus tahay mid saaxiibkay ayaa fariin wuxuu iigu soo diray aniga Soomaaliya ayaan shaqo macallinimo ugu socdaa iska kaya cafi iyo soo ducay fariinta markii aan akhriyay aad ayaan u farxay waxayna ahayd habeen aan alla ka bariyay anigana inuu fursad siiyo 10 maalin kadib waxa ii soo dhacay fariin iiga timid Soomaaliya gaar ahaan jaamacadda cilmiga caafimaadka macallin ayay raadinaysaa cajiib ayay ila noqotay aad ayaan u farxay 10 maalin ka hor ayaan ku ducaystay ducadeediina alla wuu aqbalay ayaan isdhahay aniga joogitaankayga Soomaaliya aad ayaan ugu faraxsanahay qoyskayga ayaan la noolahay 3 sano ayaan Soomaaliya joogaa sheekadeedii qaybta ugu muhiimsan 4 maalin ka hor waxaa Muqdisho igu dhalatay gabadhayda Zainab anigoo jooga Soomaaliya ayaan guursaday anigoo jooga ayaana aabba noqday markasta waxyaabo culays way jirayaan waxaana ka mid ah dalkayga iyo ehelkayga ayaan ka soo tagay sanadkii hal mar ayaan aadaa hadda 2 ehel ayaan leeyahay ehelkayga iyo ehelka xaaskayga sanadkii mar ayaan is aragnaa taasina waa cimilada Soomaaliya iyo qabsigeeda laakiin guud ahaan intii aan halkan joogay lama aanan kulmin wax dhibaato ah oo weyn aniga markii aan Muqdisho imaaday dadkaygu waxay warsan jireen Soomaaliya see waaye maxaad cuntiin maxaad cabtiin Soomaalida luqadeed kula hadashiin meelo wasaq miyaa degan tihiin su'aalo badan ayay ku warsanayaan aniga waxaan ka fahmay su'aalahaas badan ummadda Turkiga Soomaaliya ma yaqaanaan sidaas ayay ku warsanayaan su'aalaha badan aniga imaanshiyayga Soomaaliya ayaan ku bartay markii aan Soomaaliya oo dhan uga sheekeeyay qof kasta wuu ku farxay rabitaan soo aadida ayaa galay macallinimada aan hayo aad ayaan ugu faraxsanahay Ben çok şaşırdım, çok mutlu oldum.